barnaamijka UOB App waa barnaamij u sahlay ardayda jaamacadda Boosaaso iyo waalidiintooda inay kala socdaan dhaqdhaqaaqyadooda sida imtixaanaadka, xaadirinta iyo lacagaha ay bixiyaan. Barnaamijkan waxaa si toos ah ugala soo degi kartaa Play Store-ka. Fiiro gaar ah, haddii aad dhigato jaamacadda Boosaaso qaybta weyn ee Boosaaso, waxaad la soo degaysaa University of Boosaaso Main. Barnaamijka markii uu kuu soo baxo, waxaad ka xulanaysaa halka ay ku qoran tahay Install. Markii uu kuu soo dego barnaamijka, waxaad ku dhufanaysaa Open. Wajahada hore ee barnaamijku waa caynkan oo kale. Fiiro gaar ah, arday kasta oo dhigta jaamacadda Boosaaso waxa uu leeyahay username iyo password u gaar ah. Haddaba geli username-kaaga iyo password-kaaga. Markii aad geliso username-kaada iyo password-kaada, waxaad ka xulanaysaa halka ay ku qoran tahay Login. Application-ka markii aad soo guda gasho waa sidan oo kale, waxaana kuu soo baxaya magacaaga, kuliyadda aad dhigato, nambarkaaga, xilliga aad dhigato jaamacadda, galab ama subax, iyo semesterkaaga. Qaybtan hoose ee barnaamijka waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood: Take Attendance, My Photos, History. Take Attendance waa qayb kuu sahlaysa inaad iska xaadiriso xiisadda aad xilligaasi dhiganayso. Ku dhufo Take Attendance. Allow dheh. Ku aadi kaamirada taleefankaaga si aad iskaan uga qaado QR-ka shaashadda hortaada ka muuqda. Kadib sidaasi ayaad isku xaadirisay. Haddaba qaybtan ay ku qoran tahay History. History-gu waa qayb aad kala soconayso boqolleyda inta aad soo xaadirtay dhammaan xiisadaha semesterka aad ku jirto. Attendance Summary waa qayb kuu sahlaysa inaad la socoto dhammaan boqolleyda aad soo xaadirtay semesterkan. Halkan waxaa ku qoran 81% inuu ardaygan soo xaadiray. Barnaamijka qaybaha kale uu leeyahay si aan u aadno, waxaad ku dhufataa qaybta sare ee taleefankaaga dhankiisa bidix 3 xariijimood ee ku yaala. Waxaa kuu soo baxaya meel ay ku qoran tahay Home, My Profile, Examination, Fees iyo Logout. Ku dhufo Home si aad u aragto wajahada hore ee application-ka, kaasoo kaaga soo muuqanaya magacaaga, kuliyadaada, nambarkaaga, semesterkaaga iyo xilliga aad dhigato jaamacadda. Qaybta xigta ee My Profile waa qayb kuu sahlaysa inaad ka aragto dhammaan xogtaada jaamacadda sida magacaaga, nambarkaada isdiiwaangelinta, nambarkaaga gacanta, semesterkaaga, kuliyadaada iyo xilliga aad jaamacadda dhigato. Taabo 3 xariijimood. Qaybta xigta ee Examination. Qaybtan waa qayb kuu sahlaysa inaad kala socoto dhammaan dhaqdhaqaaqyada imtixaanaadkaada, kaadka, semesterka, finalka iyo xaadirkaaga. Fiiro gaar ah, waxaad qaybtan ka heli kartaa semesterkaadii koowaad ilaa semesterka aad marayso ee imtixaanaadkaaga. Tusaale, haddii aan ku dhufano semester ka mid ah semesteradan, qaybtan bidix ee appka waxaa ku xusan maadooyinka aad dhigato. Haddii aad u kaxayso gacantaada dhanka bidix, waxaad heli karaysaa imtixaanaadkaaga, kaadka, attendance-ga, assignment-ga, final exam-ka, wadarta maadooyinkaaga iyo dhammaan grade-ka aad keentay sida A, B, C, D iyo E. Ku laabo 3 xariijimood. Qaybta Examination-ka xigta ee Fees waa qayb kuu sahlaysa inaad kala socoto dhammaan dhaqdhaqaaqyada lacagta semesterka ee aad bixisay. Ku dhufo. Halkan waxaa ku xusan lacagta ardaygan uu semesterka bixiyay ama dhaqdhaqaaqyadii uu sameeyay. Ku dhufo falaarta qaybta sare ee bidixda kaaga muuqata si aad uga noqoto qaybtan. Qaybtan Vote waa qayb u sahlaysa ardayda jaamacadda Boosaaso inay ku codeeyaan qaab online ah. Waxaa jaamacadda Boosaaso ka dhacaysa doorasho qof iyo cod ah, kaasoo loogu tartamayo gudoomiyaha guud ee ardayda jaamacadda Boosaaso faraceeda Boosaaso.
ka xulo fawd si aad u gasho qaybtan. waxaa kuu soo baxaya dhammaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha guud ee ardayda jaamacadda Boosaaso faraceeda Boosaaso. haddii aan ku dhufto mid ka mid ah musharaxiinta hortaada ka muuqata, tusaale ahaan Faatima Ibraahim Muuse, ayaan ku dhufanayaa si aan ugu codeeyo. maxaan samaynayaa? ku dhufo musharaxa aad u codeynayso. halkan ay ku qoran tahay bin ee kaaga muuqdo qufulka, waxa aad gelinaysaa furasireedka ama biinka ay ku siiyeen guddiga doorashooyinka ee jaamacadda Boosaaso ama injineerada. haddii aad geliso bin qaldan, waxa uu abka kuu sheegayaa in aad gelisay bin aan sax ahayn. haddaba geli biinkaaga saxda ah ee ay ku siiyeen guddiga doorashooyinka ama injineerada abka. kadib markii aad biinka geliso, waxaad ku dhufanaysaa ama ka xulanaysaa halka ay ku qoran tahay fawd. abku waxa uu hoos kuugu sheegayaa inaad u codaysay musharaxa aad dooratay. kadibna sidaasi ayaad codkaadigi ku dhiibatay. qaybtan fawd ama codayn waxaa applicationka lagu soo kordhiyey kadib markii ay arkeen injineerada jaamacadda Boosaaso baahiyaha loo qabo in lagu codeeyo qaab online ah si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19. qaybta u dambaysa ee barnaamijka waxaa ku qoran log out. waa halkii aad kaga bixi lahayd barnaamijka adigoo taabanaya log out.